بسم الله الرحمن الرحيم آذان idin salaami saaxiibayaal meel walba ad iga daawanaysaan magacaygu waa Cabdilatiif Xirsi waxaan rabaa maanta halkaan inaan ku soo gudbiyo sheeko yar oo caan ah oo inta badan dadku ay wada garanayaan sheekadan waxa laga yaabaa 10kii qof ee Soomaaliya isla socota 8 kamida ama 9 kamida inay taqaanaa laga yaabaa laakiin waxaan rabaa sheekada qayb kamida dulucdeeda oo aan u arkay muhiim inay tahay ayaa waxaan rabaa inaan si fiican isku dul taaga haduu Ilaahay yiraahdo intaana sheekada gelin waa qasab qof kasto inaga mida safarkiisa noloshu inta uu ku jiro ama inta safarka nolosha uu qofka uu socdo in uu la kulmaayo caqabado iyo culeysyo iyo hardaniye kala duwan qofku inuu la kulmaayo waa qasab waana dabeecad nololeed oo jirto waay inta kadib sheekadu waxay ahayd nin boqora hadda ka hor waxa la yiri wuxuu maamulayay ama xukumayay tuulo maalinkii dambe wuxuu damcay inuu wax ka ogaado dadkii uu madaxa u yahay ama uu boqorka u yahay hadday wax qabsadaan ama culeysyo hadday yimaadaan sida ay uga falcelin karaan ama sida ay ula tacaali karaan buu rabay inuu ogaado marka abu maalinkii dambe gurigiisii ka soo baxay deetana wada weyn oo shaarica oo dadku si joogta ay u isticmaalaan ayuu yimid kadibna wuxuu go'aansaday wadada inuu gooyo si uu u ogaado falcelinta ka imaanaysa dadka dhankooda marka wadadiiba wuxuu ku gooyay dhagax weyn oo ay culus tahay in qof kasta dhagaxiyo meesha yaala uu wadada ka gudbo marka meel yar oo wadada u dhowna waa iska fariistay oo dadku aysan ka arkayn laakiin waxa ay sheegayaan uu ka maqli karo markaas qof kasta markuu wadadii soo mara dadka intooda badnayd boqorkiiba qof wax ka sheega qof dhagaxiiba wax ka sheega qof wadadiiba wax ka sheega yaani qof kasta qaab aan fiicnayn buu uga falceliyay inta marka uu dhageysanaya ujeedadiisuna waa inuu ogaado kaliya dadku waxaan uu sameeyay sidii uga falcelinayaan markii dama waxa dhacday nin rarata ah oo asaga iyo waxa u raran aanay mari karin dariiqa ama wadada ilaa dhagaxa uu iska leexiyo maahane ayaa wadadii ku yimid marka wuxuu go'aansaday inta wadada aanu marin inuu dhagaxan weyn meesha ka qaado si wadada uu u maro dhagaxiibu dilindileeyay aakhirkiina wuxuu ka saaray wadadiibu ka saaray marka boqorku dhagaxa hoostiisa ayuu wuxuu geliyay warqad yar oo laba shay ay ku jirtay shayga koowaad wuxuu ahaa dahab uu ugu talagalay qofkii mas'uuliyadan qaada ama culeyskan qofkii qaada inuu abaalmarin inuu u helo shayga labaad ee warqadda ku dhex jirana wuxuu ahaa 7 kelmadood oo Ingiriisa note yar oo ay ku qoran tahay ninkii markuu dhagaxii wadadii ka qaaday ayuu meeshii wuxuu ka helay labadii shay buu ka helay shaygii koowaad oo ah abaalmarin dahab iyo wax isugu jirto oo boqorku ugu talagalay qofkii mas'uuliyadan isa saara inuu qaato shayga labaadna wuxuu ahaa warqad yar oo duuduuban oo 7 kelmadood oo Ingiriisa ay ku xardhan tahay 7da kelmadood baan marka waxaan rabaa maanta inaan sheego marka intaanan sheegin adiga muuqaalka daawanaya bowskare ama muuqaalka jooji deetana waxaad soo qaadataa meeshii aad ku qoran lahayd 7da kelmadood ee Ingiriiska I hope inaad soo qaadatay 7da kelmadood oo Ingiriiska ah oo warqadda ku qornayd waxay kala ahaayeen what comes the way becomes the way oo macnaheedu yahay dariiqa aad ku safrayso ama halka aad u socoto ee wadada ku ah wax allaala iyo wixii jidgooyo ama carqalad ama isbaare ka hortimaada iyada laftirkeeda marmarka qaarkood waxay ku noqon kartaa wada ku noqon kartaa marka waxa ugu weyn ee sheekadan aan u soo qaatay wax kale ma ahayn sidan hordhaca muuqaalka ku sheegay sheekada inta badan dadku way wada garanayaan laakiin qaybta dambo ah what comes the way becomes the way maxallu shaahidka ugu muhiimsan ee sheekadan aan u soo qaatay intaas oo ah thank you so much